arrinta muhiim waxa ah horta ummadda soomaaliyeed inay hal arrin ogaato shalay go-aankii ay ICG-du gaartay wuxuu ku salaysnaa laba qayb. qayb waxay ahayd qaybta sharciyadda oo ii aan isku hayna Kenya ahayd equidistance line iyo parallel line oo Kenya wasiirkeeda ahaa. sharciyadda annaga noo helisay runtii gul weynan ahayd inay qaataan equidistance line-kii ee markasta annaga aan taagnayn ama sharciyadda dunidu ay markaas ku salaysnay. qaybta kaleeto waxay ahayd qayb samafal siyaasadeed aan leeyahay ayay ahayd oo siyaasad ah oo ICG-du marka ay leedahay equitable solution ay leedahay wax yar badda ilaa adigu intaasoo meel north ha looga kaco kii annaga aan sheeganaynay. arrintaas waxay arrin siyaasad ku salaysan doodeeda seebay ku gaartay ICG-da. arrintaas waxay u baahan tahay dood ayada waqti kale tahay. laakiin annaga guud waxaanu dhinaca sharciyadda ah inay equidistance line-ka ay doorfiraysay. laakiin hadda marka la fiiriyo qadka sida loo jeexay yaa haysta in badan Soomaaliya iyo Kenya? 85% anaga haysana 15% ayaa hadda Kenya waxaa loogu sameeyay waxay samafal siyaasadeed aan kula yahay oo waliba waxa ay argumentka ay sameeyeen ICG waxay soo geliyeen haddii berita ka maalin ay Tanzania iyo Kenya ay arrintooda equidistance line tagto inay Kenya luminayso badda access-ka ay u leedahay oo idin marka ayagoo taas ka soo qaadaya waxaa moodaa inay xoogaa siyaasad ku saleeyeen go-aankaas ay leeyihiin equitable solution na waa loo baahan yahay 15% oo loo furayo badda Kenya yani inaanan ka xirnayn access-ka ayay horta intaas u sameeyeen. dad heshiiskan si dhow ula socda waxay leeyihiin dhinacii ilaa 5 ceel oo aad maaragtay muhiim u ahaa wax soo saarka kheyraadka shidaalka uu ka mid yahay oo kale ayaa intiiba Kenya loo xukumay. runtii aniga hadda ceelasha iyo horta xooga dhulka 85% iyo intaadka iyo bixiyeen iyo blocks-ka iyo bixiyeen 85% horta Soomaaliya ayaa la siiyey. sharciyadana 100% waa la hayay Soomaaliya. laakiin arrinta hadda taagneed shidaal maba ahayn oo equitable solution-ka ay ku saleeyeen waxay ahayd access-ka badda inaysan lumin Kenya. taas waa siyaasad waxay la tahay doodeeda leedahay. laakiin أنا waxaan ku leeyahay ceelashaas iyo intii badneyd 85% wadii markaas yani ay ka taagneed hadalka waxa qaatay Soomaaliya ee loo xukumay. tan aan hadda leedahay waa la siyaasadeeyay marka ma la dhihi karaa Kenya maxkamadda ugu roonaatay soo falka siyaasadeed sababtay u gaareen maxkamadda oo 15% dhulka aan sheeganaynay ay adigu 12 nautical mile ee kor uga kaceen line-kii anaga aan sheeganaynay. arrintaas arrin doodeeda leh way u baahan dad sharci yaqaanaha inay inta galaan ay fasiraan sababta iyo waxa ay ku saleeyeen. laakiin markaan akhriyay waxaan u qaatay inay arrintaas siyaasadaysan tahay sababtoo ah waxay xataa soo geliyeen Tanzania oo hadday dhacdo berito in Tanzania ay ku dhisan noqoto Kenya inay yani la siiyo space yar oo ay badda access u yeelato inay ku salaysan tahay taasaan filayaa. laakiin dad sharci yaqaanaha iyo runtii Rome inay arrintaas galaan ka hadlaan. adiga sidee u aragtaa mas-uul hore ahaan qof ahaan markaad fiiriso? anaga runtii gurigeena noo ahayd Falastiin sababta waxay tahay Kenya horta waxaan rabaa inaan ku noqdo oo dadka waxyaaba badan ay soo hansanayaan jira. annaga horta ilaa iyo 60kii iyo dowladdii militariga annaga iyo Kenya marna ma ayaan sameyn wax walba delineation oo macnaheedu yahay inaynan qof kasta waa sheegata laakiin marna agreement lagama gaarin in xuduudkaas iyo xuduud looda dal isku waafaqeen. sababta ay waliba Kenya waxyaabaha annaga khatarta nagu ahayd waxay ahayd laba mar dowladda militariga aan u malaynay 79 iyo 89 ay Kenya sheegatay in xuduudana parallelka ah dowladda militariga markaas kama aysan hadlin kamana aysan jawaabin. waxaan isleeyahay runtii waqtigaas dowladda siilka iyo dowladda Soomaalida militariga ahayd labadaba ay uga gaabsadeen. qayb waxaa ka ahayd sababta foreign policy objective-kii Soomaaliya waqtigaas wuxuu aashinta Soomaaliya waxayna ka cabsadeen waa isleeyahay haddii aad arrintan delineation-ka iyo delimitationka aad ku mitidaan sida xaqa ah u leedihiin equidistance position-ka ah inay keeni karto inay ka tanasuleen arrintii dhulka LFD iyo markaas xaaladii taagnahay. marka sidaas darteed waa ka gaabsadeen. marka 2005 ayay golaha wasiirada intay fadhiisay
waxay soo wax la dhaho self reclamation of bond movement oo ah inay soo asmoonaysiiyeen arrintii ay itinaan iyo sheegeen oo ahaa parallel line-ka ah inay xuduudkeenu tahay parallel line. MOU-dii annaga aan xinay ayaa horta marka ugu horeysa lagu cadeeyay Kenya waxa ay sheeganayso oo parallel line-ka iyo annaga marna inaan delimitation ayna ka soo shalay maxkamadda waa ay soo hadal qaaday waxayna sheegeen in MOU-ga ama memorandum of understanding-ka uu ahaa in wax heshiis ah aanu jirin oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka gaareen xuduudda dhinaca badda, laakiin dadka weli duraaya waxay leeyihiin Kenya waxay u horseeday guul, sababta ay guusha uga gaartayna waxay tahay MOU-gi. arrinta horta MOU-ga dadku runtii waxay aad runtii ayada baxsatay hadda dacwada keyskeena sababtoo ah Kenya markii dambe haddaan fiirisay oo dhan doodeeda waxay ku saabsaneen wax la acquaintances waxa waaye markii qof intuu dhul sheegta qof ku qabsado waaye waad ogtahay markaas waxay noqonaysaa qofka inuu xalaalaysto dhulka. MOU-da dadkaan duraaya iyo dadka hadda waa fahmeen 90% dadka duraayana arrin siyaasadeed darteeda u durayaan, laakiin iyada ugu horeysa wax loo adduunka u sheegay inaan Kenya anaga marna inaan ka xaajoon boundaries wax MOU-dana markii horeeto oo sida ay ahayd extension of anaga continental shelfskeena oo markaas 200 inta laga qaado 350 laga gaarsiiyay. guusha ugu weyn oo Soomaaliya runtii usoo hoyatay maanta waa laba arrimood. horta waa mare arrintan dacwada ayaa baxasha marin hawlaasay annaga Soomaaliya MOU-daas waxay u keentay loo guul ah in 200 nautical mile intaan ka kacna maanta badda xuduudkiisa ay tahay 300 feet ugu yaraan ilaa 600 oo kun oo suuqyada badeeda ayaa maanta leedahay oo ay nautical miles 100 kunkaas ku soo zaadeen taqriiban ilaa 300 400 kun oo kaleeto anaga naga maqnaa. midda kaleeto waxay ahayd equidistance position-kii annaga Soomaaliya aan markasta aan taagnay ayay endorse gareysay oo Kenya parallel-kan ay soo saacida ku kala ahayd wax kala hadlay iyo qof kala heshiiyay haweeneyda dowladda Soomaaliya ama mid horta mid dowladda inay heshiiso. Kenya hadda waa ay diiday inkastoo Soomaaliya dhinaceeda ay soo dhaweysay qareeno kamida maxkamadda iyo kuwa banaanka joogaba waa ay durayaan. xagee ku dhamaanaysaa marka? hadda waxay la tahay ICJ-da ay hadda go'aamisay waxay la tahay waa arrin iyadu Kenya waa ku hordhacday waana garanaysa waxa kan khaladkeeda iyo runtii in sharciyada adduunka ay ku dhisayso ku dhisan tahay. go-aanka samafalka siyaasadeed ee ICJ sameeyeen equitable solution ugu magacaabay ruuxeeda waxay sabgalayn doontaa president cusub oo sharciyada adduunka hadda dowladaha isqasbaan ay qayb ka noqon doonto. arrintaas waa siyaasad waxaa muhiim ah dad mooyee dad siyaasiyiin inay address gareeyaan runtii dood kaleeto laakiin arrintan dacwada hadda waa final amise la tahay Kenyana waa diiday laakiin meel yani waxay diiri kartaa un implementationka caqabad ka keeni kartaa laakiin ilama ah in hadda sharciyad kaleeto iyo meel kaleeto hadda loo noqonayo oo ICJ ka weyn oo hadda la dhahayo racfaan laga qaadanayo inay jirto umaleynay.